dugsiga farsamada gacanta ee Tayamal Technical School iyo Tayamal Workshop ayaa maanta si wada jira uga qayb qaatay ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa gaar ahaan xabaalaha masallaha ee Geela Arab waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay aasaasaha dugsiga farsamada gacanta ee Tayamal Technical School Engineer Mohamed Sulub Khaliif isagoo ka waramay sida uu dugsigu uga qayb qaato arrimaha bulshada iyo danta guud gaar ahaan dhinacyada dhiirigelinta dhalinyarada waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sallallahu sayyidina Maxamed ilaahay baa mahadle halka ana ku hadlaya afka Tayamal Technical iyo Tayamal Workshop anoo ka jawaabina baaqi maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa maanta halkan sugu nimid inaan xabaalaha masallaha ka guro qashinka wadinka arkaya imika waxaan sameynaa gaarigaasaan ku ridinaa haddana xabaalaha dib ugu noqonaynaa farxadeed waayo waxaynu ka shaqeynaa xabaalihii waa halkii waa gurigii rasmiga ahaa marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inagoo soo ajiibna baaqi maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge goob laga shaqeeyo waxa ugu wanaagsan xabaalaha dadkana waxaan u sheegaynaa markay xabaalaha yimaadaan caagadaha ay ku cabayaan iyo one time-ka ay soo qaadanayaan gaarigooda dib ugu celiyaan meel asturan ha geeyaan si ay u qaado shaqaalaha dawladda hoose gudoomiyaha guddida nabadgelyada ee degmada Axmed Dhagax oday Axmed Caalin oo ku nuxnuxsaday sida ballaaran ee ay u soo ajiibeen baaqi maayirka in maanta waa maalin qaaliya waa maalin farxad leh waa maalin aan codkii maayirka caasimadda ajiibnay waa maalin la asiibay Allah tabaaraka wa tacaala rayiga uu soo waafajiyay maayirka waa maalin guryaheennii rasmiga ahaa ee xabaalaha aynu nadaafadinayno waxaanu halkan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa shirkadda Tayamal waxaanu leeyahay jazaakumullahu khayran wa jazaa andagel hadba wixii la geliyaa laga maalaa shicibkaagaad wax gashatay shaqaalahaagii oo dhan baad maanta soo kaxaysay meheradaadii ayaad soo fadhiisisay adoo maanta xabaalaha ummadda lagu aasayo ilaahay subxaanahu wa tacaala jazaa'iga haynaga mariyo iyadoo awalba ay mataqaan nadaafaddu imaamka ka mid tahay maanta nadaafadii qubuuraha ayaynu ku jiraa waxa aad arkaysaaba xabaalaha laga guray waxa aynu arkayno ayaa xabaalihii laga guray geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada dugsiga farsamada gacanta ee Tayamal Technical School waxaana ay yiraahdeen maanta waxaanu ku sugannahay xabaalaha masallaha anagoo ka mid ah shaqaalaha Tayamal Group oo u kala qaybsan Tayamal Workshop Tayamal Technical ay area-da xabaalaha masallaha taasoo aanu ka wadno ololaha nadaafadda ama aanu ka jawaabayno baaqi maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge oo u iclaamiyay maalinta ololaha nadaafadda saaka waxaanu ka soo bilownay area-da uu ku yaalo Tayamal Workshop iyo xaafadda Siinay mar labaad waxaanu socdaal u soo galnay sidii aan uga qayb qaadan lahayn meeshii uu iclaamiyay ama position-kii maayirku iclaamiyay oo ah xabaalaha masallaha imanka waxaanu ku sugannahay xabaalihi masallaha insha Allah markastana waxaanu diyaar u nahay inaanu kala qayb qaadano maayirka caasimadda sidii aan uga jawaabi lahayn hadda baaqa uu soo diray ololaha nadaafadda waxaan nahay maamulkii degmada Axmed Dhagax baan nahay laakiin waxaan aad iyo aad u boorinayaa oo u soo dhaweynayaa shirkaddan Tayamal oo saacad walba iyo waqti walba nala garab taagan hiil iyo hooba oo ah muwaadiniinta farakutiriska shirkadda ee degmada degan ragga ugu caansan ka mid ah waa adiga arkaya oo idinka arkaya dee wax qabadkoodii maanta waxay ka badan yihiin waa adiga arkaya waa shirkad caalami ah oo de waxa weeye inta imika inada joogtay inta xabaalaha ku faafsan way isleegiin aad iyo aad baan soo dhaweynayaa Maxamed oo aan noogu jira rool cawaandiya noogu jira oo ganacsatada degmada Axmed Dhagax rag ugu caansan ka mid ah aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aad iyo aadna waan u amaanaya anigoo ah xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Berbera 8 sanadood ee aynu soo dhaafnay ka shaqeynayay oo ahna qoladii imika wareejisay ku wareejisay golahan cusub waxaan maanta joogaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xabaalaha masallaha galbeedka halka waxa ka socda olole nadaafadeed oo maayir Cabdikariin uu ku baaqay khamiista sida caadada u ahayd oo bulshadu la doonayay maanta Axmed Dhagax oo dhan shirkadaha Axmed Dhagax iyo magaalada shicibku waa inay ka soo qayb galaan runtii aniguna aan ka soo qayb galay saaka may iman sidii aan filayay uma iman shirkadihii Axmed Dhagax ama Berbera ama Hargeysa
laga filayay inay yimaadaan marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda keliya ee aan nagala qayb gashay hawshan qaybta lixaadana ka qaadatay oo ah shirkadda boodhkeedu ka yahay Tayamaal